السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaynu baran doonaa sida loo sameeyo project HTML iyo CSS ku dhisan adoo isticmaalaya framework loo yaqaan Tailwind CSS. Ayaan bilowno. Challenge-yada waxaynu kasoo heli karnaa waxaynu isticmaali doonaa website-ka loo yaqaan Front End Mentor. Google ayaan tegi doonaa. Front End Mentor. Website-kan waxaa ku jira challenge-yo loogu talagalay inuu qofku wax ku barto. halkii markii hore qofku intuu casharo barto tutorial uu si wax samayn jiray, halkan waxaa loogu talagalay qofka soo bartay essentials-ka inuu isagu wixii uu soo bartay halkan ku practice gareeyo. Challenge ayaa la siinayaa. Challenge-yadaas muuqaal ahaan baa lagu siin doonaa ama sawir ahaan. Sawiraantaas ayaa la odhan doonaa qofka ku samee HTML iyo CSS. haddii qofku uu raacinayo inuu framework-yada CSS-ka ku sameeyo sida Bootstrap iyo Tailwind CSS iyo React iyo JavaScript framework ah, isaga u taala. laakiin qofka waxaa laga doonayaa inuu sameeyo design-ka uu ku sameeyo ama HTML CSS ku sameeyo ama framework-yada CSS ku sameeyo. aynu galno. waxaad u baahan tahay website-kan inaad isticmaashid. waxaad u baahan tahay website-ka loo yaqaan GitHub. GitHub waa inaad user ku leedahay. saad kan u isticmaashid website-kan front end-ka u isticmaashid. waayo website-ka waxaan geli doonaa GitHub. waxaan kaloo casharkan dhexdiisa ku baran doonaa GitHub-ka iyo basics-ka sida loo isticmaalo. GitHub waa meel aad code-kaaga kusoo bandhigi kartid, sidoo kalena aad hadhow mustaqbalka wax kaga bedeli kartid. asxaab fara badan aad ku wada isticmaali kartaan. waxyaalo badan ayuu GitHub faa'iido u leeyahay. anuu hadda user baan ku leeyahay, laakiin qofkaan userka ku lahayni waa inuu marka koowaad isdiiwaangeliyaa. waayo user baan leeyahay, userkaan sign in garanayaa. userkayga waxaa la yidhahdaa Cabdiraxiim AA. password-ka gelin doonaa. password-ka waan qalday, waan ku celin doonaa. dariiqa koowaad ayaan samayn doonaa waxa weeye inaad samayso repository. repository waxa weeye waa inaad folder samaysatid. folder mashruucaagni hadhow lagu soo upload garayn doono, hadhowna lagana download garaysan karo. waa inaad samaysatid. waxaan odhanayaa create new repository. magac baan u bixinayaa. magaca project-iga aan samayn doono ku xasuusan doono waxaa la yidhahdaa QR code baa la yidhahdaa. intan waa description. waxaan iskaga qori karaa designing ama front end mentor challenge. waxaan usoo bixin doonaa saan ugu karto QR code template. waayo kan baan samaysan doonaa. repository-gii saasaan ku abuuray. hadda waxaan doonayaa inaan geysto computer-kayga. waxaan copy garayn doonaa URL-ka. dabeetna waxaan tegi doonaa. waa inaad computer-kaaga intaa sameeyo inuu kugu jiraa git bash waxaa loo yaqaan. waa kan. si uu kugu shaqeeyo command-kani waa inuu kugu jiraa git bash-kan inuu kugu jiraa. xaggeed kasoo download garaysanaysaa? waxaad kasoo download garaysanaysaa Google-ka ayaad tegeysaa. git baad ku qoraysaa qura. dabeetna waxaad tegeysaa git-ka. waxaad la soo degeysaa git-ka. waa kan. hadduu computer-kaagu 32 yahay 32-kaa la degeysaa. haddii kalena 64-ka la degeysaa. mostly dadku waa 64. waa yahay. waxaan hadda xaggeen joogaa? PWD baad ugu ogaanaya halkaan joogtid. aan soo weyneeyo shaashadda. waa kan. waxaad joogtaa users admin baad joogtaa. waxaan doonayaa inaan ogaado maxaa adminga kusii dhex jira. ls baa la isticmaalayaa. ls waxaa ka mid ah igu yidhi desktop. halkan doonayana waa desktop-ka inaan folder ka abuuro. cd desktop oo markaan saa waxaan leeyahay git clone. clone waxa weeye directory-gan waxa ku jira ama haddii kale way soo copy garee. clone waa copy macnaheedu.
haye waxaan urlkan desktopka ma doonayo waxaan tegayaa bartii baan ku noqonayaa urlkaasna soo qaadanayaa copy baan odhanayaa halkan baan imanayaa paste baan ku odhanayaa u fiirsada kaloni wuxuu waa repository uu maray yeelkii iska soo qaado cd tag maxaa tahay desktopka maxaa dhex yaalla hadda waa kan folder cusub inoo abuuray oo leedahay qr core template waa magacayga ka soo bixinay github waa yahay cdc tag qr kusii tag waa kan halkaas aad soo waad saxanay ilaa hataa aan waa saxanay waayahay markaan halkaas soo gaadho waxaan ku noqonayaa front end monitorkayga waan ku noqonayaa front end monitor san hore usoo sheegay waxaa ku jira challengeyo loogu talagalay inuu ardaygu wax ku barto oo real life practical u sameeyo وتعلم قواعد improve your coding skills by building realistic project مشاريع dhab ah ayaad samaynaysaa waay marka koowaad waxaan u baahanay inaan login gareeyo aniga login gareeyay automatic wuxuu qaadanayaa githubkayga ii sign in garaysan oo ah cabdiraxiim aydayt waay challenge-yadan tegi doonaa challenge-yadan waxaan doonayaa inaan filter gareeyo halkan filterka u fiirsado filterkan waxaan doonayaa projectada ay la socdaan figma fileku waxa weeye waa meel designiska iyo barbartiyadooda iyo leeyihiin waay freega waaba saddexda ma oo koobiy kaan doonayaa inaan aan isla sameynaa maanta waxa weeye waa qr core communities haye waxaan doonayaa inaan sameeyo submit solution maxaa la iska doonaya wey Paras challenge if you are new oo markii ku hadaad ku cusubtay HTML CSS oo meel aad ka bilaabi karto cardkan ayaa la iska doonayaa weli waa kan card haye submit solution ka dheh way submit solution more download asset ayaan u galay laakiin start challenge waa idinka soo baxay haye waxaan doonayaa inaan download starter file-ka bilowga ah iyo designadiisii iyo waxa la iska doonayay guideline-kii iyo farta uu isticmaalay wax waliba halkan ku jiraan wixii instructions oo dhan halkan baad ka helaysaa file-ka figmadana halkan laga helayaa figma waa like photoshop oo kale oo ku siinaya properties ku siinaya oo qoraya margin-ku waa intaa body-ku waa intaa border-ka waxaas la isticmaalay waxa kale haye sidoo kalena figmada in dooran garaa وجهر بنا مدرسة دماء دولة رئيس كتاك كان سكسار هي كان هذا كود بقرأ extract بسمه وأكون فايلش وقاعدين يجيب جوده control A مثلا select all مثلا يا على كود حاجة اللي تجيها folder كي يجلس كتابها كأو تبان تجيها وكان في سادة folder كي يجي كان يجي باس تجاه كل فوق هدي عن ويندوز 11 شو مور ده باس تجاه كاس كاس صباح هذا هو ديزاين جالس كدوني ديزاين جالس كدوني هذا كاي ديزاين هذا جالس كدوني design-ka la iska doonaya waa kuwan waa laba design buu doonayaa marka uu shaashadaha waaweyn yahay waa inuu noocan noqdaa buu leeyahay haye markuu shaashad yar yahay sida mobilka oo kalena waa inuu sidan noqdaa soo socotaan fikirka la iska doonaya waa intaa haddaba waaye maxaa meesha resource ah ama asset ah waxaa sawirka imageska ah ee ka sawirkan waa sawirka lagu isticmaalo projectiga waxay ku jiraan imageska haye halkan kale waxaa ku jira waxaa loo yaqaan stair guide waan arki doonaa la furba editorka la fur ama notepad la fur notepad la furaynaa oo kuwan wuxuu yidhi layoutka waxaa la isticmaalay sin hadda soo aragnay shaashadaha waaweyn iyo mobilku waa inuu maxay shaashada la isticmaalay waa 375 pixel desktopkana waxaa la isticmaalay 1440 pixel width-ka weyn haye kalarada la isticmaalay waa kuwan waa white
iyo saddexdan kalar oo slide oo iyo ku kala duwan 300 500 900 farta la isticmaalo waa maxay waxa loo yaqaanaa outfit laba weight baa laga isticmaalaa mid ay tahay 400 midna ay tahay 700 paragraph size-kuna waa 15 pixel waayo inta waan soo samayn doonaa inta waa guide waayo marka halkaa marayso waxaan doonayaa inaan figma file-kana la furo figmadii waayo website-ka figma.com gal figma.com maadaama project-keenu yahay free plus macnaheedu waxa weeye inuu la socdo faylkii figmada ahaa faylka figmada ah oo wax badan kuu tari doona haye ani user baan ku leeyahay qofka aan user ku lahayn waa inuu halkan ka abuurtaa yidhahdaa get started for free waa yahay userkayga ku gelayaa maxay cali gmail.com passwordkiina soo baan gelayaa digidii ma u qaat okay faylkii figmada ahaa halkan keenaya intana mashaariic hore aan u abuuray ayaa ku jirta yeelkeedka cusub baan soo qaadanaa hadda ka cusub waa kan xagee markii soo dhigna waa kan figmada extract samee marka hore figma faylka haye faylkaasaa kusii jira waa kan halkan inoo dhigay waa kan faylka figmada ayagaasaan drag and drop aan sameynaya halkaasaan qabtay raqabada halkaasaan keenay waa inuu figmadu ii furnaada isaga automatic u akhrisanaya haddii kalena open baad samayn kartaa figmada dhexdeeda haye waa kan faylka waa kan intani waa maxay design systemka loo sameeya eeg aan kusii fur assetka eeg halkan eeg faylka tag waa kan overview design systemka marka waa eeg waa kuwan muxuu isticmaalay style guide for u fiirsada waan soo weyneynaya waa kan muxuu isticmaalay saddexda kalar baa la isticmaalay mashruucan mid waa 900 slide 900 muu bixiyey midna slide 500 midna slide 300 haye background weight-kana waa la isticmaalay sidoo kale waxaa la isticmaalay text baa la isticmaalay mid line height-kiisu 120% yahay 0 pixel letter spacing yahay waa kuwan spacing-ka maxaa la isticmaalay 500 oo loo yaqaan 40 pixel buu bixiyey 420-ka 300 buu isticmaalay waxa dhan waan isticmaali doonaa waa kan design-ka la iska doonaya designada labada design la iska doonaya markan shaashadu waa mise waa 1440 sidii lagu soo sheegay markana 357 kan ku horeyn doonaa waayahay halkaa markay marayso waxaan soo furi doonaa Visual Studio Code oo ah code editor Visual Studio Code VS Code kubaad ama Visual Studio Code waa kan haddii aan qofku computerka ugu jirin waa inuu soo download garaysaa ka soo download garaysaa halkee Google ku tegayaa Visual Studio Code ku qoraya ku tegaya website-ka code editing waa editorka hadda ugu top 1-ka ah okay download qoraya for Windows waayahay ardaygu markuu soo download garaysto waa inuu furaa waa inuu halkan tagaa waa kan iguma jira aniga laftiga computerkayga waa inaan soo download garaysanaya isla aragno download for Windows baan oranayaa u fiirsada waxa uu isticmaalay eeg figmada intuu inoo soo degayay halkan eegi doonaa figmada eeg u fiirsada figmada waxay ku siinaysaa inuu kuu kala sheego properties-ka afarta dhinac wuxuu yidhi afarta dhinac waxaan ka turkay 16 pixel padding waxaa laga turkay 16 pixel waa dusha sare bottomka 40 pixel baa laga turkay
halkan waxaa laga turkay dhinacyada laba dhinacna 16 pixel baa la turkay. wuxuu meesha u kala qaybsan yihiin qaybta sawirka iyo qaybta tegaska. qaybta sawirka iyo qaybta tegaska waxa u dhexeeya 24 pixel. haye kan qoraalka u qaali qaybtana waa block. qaybta qoraalka iyaga waxa u dhexeeya 16 pixel. waayo sawirku waa maxay? waa 288 pixel 288 pixel width iyo height kiisa. haye halkan uu kaalay sawirka wuu ka duwan yahay markuu sawirka yahay u fiirsada qaybta design. intaan waa iskaga mid kaa waa iskaga mid kanna waa imisa sawirkuna waa 288 pixel. haye waa 16 pixel waa iskaga mid. haye projectigu imisa u kala qaybsan yihiin markan? haye waa 24 same waxa qura uu leeyahay dheeraadka waxay drop shadow uu leeyahay ama box shadow waxa loo yaqaan iyo kalaradii la isticmaalay ee meesha ku cad. faylku wuu soo degay aan ku shubto accept baan siinayaa. next diska tabay kan iyo samee kuwaas ka dooro. wuxuu ku dari doonaa right click ayuu ku dari doonaa open with first code. waa kan kadib markaan ku shubay waxaan tegi doonaa filekeeni projectga ku yaalay halkan desktop inoo yaalay. halka mar right click siinayaa show more option baan odhanayaa open with code. haddii taa aad ka weydo oo kugu jiro Visual Studio Code waxaad tegi doontaa halkan startka ku dhufan doontaa bartaa waxaad ka baaraysaa Visual Studio Code waa in halkan kaga soo baxaa. waan furay hagaan sii tegayaa barta baan tegayaa fileka open folder baan odhanayaa desktopka mar waa halkan mashruuca ku yaalay ayaan tegayaa folderkan ku doonanayn u fiirsada. waxaa igu jira meeshan filekii barbilowga ah inta aanan doonin baan iska saaraya. waan iska saarayaa kaa waan iska saarayaa taas uma baahni intana uma baahni mashruucayga uma baahni. haye meesha waxaa laynaga doonayaa waa intan. haye halkan baan waxaan soo dejisan doonaa extensionska daruuriga ah aan u baahnay baan soo dejinaya. haye HTML baan iskaga qorayaa mise ugu caansan baan eegaya HTML and CSS support ma doonayo kan. waxaan doonayaa inaan iska soo dejisto live serverka oo ugu caansan 57 million ayaa download gareysay. haye wuxuu iga caawinayaa kani inaan marka anaa koodkayga aan wado inuu i tuso live igu tuso. iconiska inuu ii bedelaan doonaya material kaasaan la soo degayaa daruuri maaha laakiin qofku iskala soo degi karaa. iconadaas ka wada dhigaya. haye marka halkaa marayso waxaan halkaa markii soo gaarnay mashruucaagii waxaad qabatay boqolkiiba 30 milyan oran kara. waxaa inoo dhiman inaynu samayno inaynu kusoo dejino mashruuceena kusoo darno Tailwind CSS. u fiirsada inaad Tailwind CSS computerkaaga halkan waxaan tegaynaa documentationka Tailwind CSS. websiteka officialka ee shirkadu leedahay gelaynaa documentationka gelaynaa waa sada app. haye maxaa lagaa doonayaa marka koowaad inaad intaas soo shubato npm install -v Tailwind CSS.
uu kuu shaqeeyo npm kani maxaa loo baahan yahay? waxaa loo baahan yahay inaad computerkaaga uu ku dejisan yahay node.js. saad u hubinaysaa, halkan baad tegaysaa, runtaad ku qoraysaa, cmd-gaad qoraysaa, waxaa odhanaysaa node space qura minus v. node ma aqaan buu saas sax hal minus baa la isticmaalaya. node minus version v bay ka taagan tahay version. haye intaas hadduu computerkaaga aanu kugu jirin maxaad samaynaysaa? waa inaad node kusoo dejisaa. waa inaad tagtaa halkee? node.js. waa inaad halkan kasoo dejisataa. waa inaad tahay download node.js. waa daruuri, waa qasab inuu computerkaaga ku jiro. aniga already uu ku jiraaba. haye hagaan tegayaa, halkan baan tegayaa, terminalkan tegayaa, new terminal baan odhanayaa. halkaa PowerShellka waxaan ka dhigayaa cmd baan ka dhigayaa. qaar baa cilada ka qabsataa PowerShellku. waan marka kore waxaan iska hubinayaa in node ku jiro node minus v baan odhanayaa. uu ku jira already uu ku jira. shaashada aan caddaan ka dhigo, fiirsada saan caddaan uga dhigayo. themes-kaan tegayaa, color themes-ka ayaan tegayaa, light plus-kan dooranaya. oo fiirsaa. haye node ku jiraa. waxaan kala eegayaa npm-kan waan eegaya. haye shaashada ayaan intan clear screen baan ku sameynaa cls. waaye waxaan samayn doonaa npm init minus y. waxaan bilaabi doonaa fileka package-ka ama nodeka ay bilowgan initialize baan samayn doonaa. haye anigaa sameeyey initialize, filekaasaan nagu soo biiray. waxaa kale nagu xigi doonaa waa inta meesha ku qoran. u fiirsada tailwind css-ka line-kan baan qaadanayaa, copy baan siinayaa. haye tailwind css baan u leeyahay. wuxuu igu soo dari doonaa library-yada iyo majuulada uu baahan yahay. folder-dan oo node majuulis ah buu samayn doonaa. u fiirsada halkan buu kusoo darsan doonaa. folder-kaa dhan ee node majuuliska. maxaa qasaba inaad internet haysato. waxaan wuxuu kala soo degayaa internet. haye npm kaana waa configuresanaya npx tailwind css. wuxuu inoo samayn doonaa barta aad configuration-kaaga wixii color ah, wixii font ah, wixii padding ah iyo wixii cabir ah aad ku qori kartid. haye waa kan fileka uu noo abuuray, command-kaasina filekaas uu noo abuurayaa. haye waan ka soconaynaa. waxaan u baahan nahay fileka configuration.js-ka inaad u tilmaantid filekaaga indexka ah. saan sameynayaa waa kan. halkan contentiga ayaan ku qorayaa, waan soo degayaa, double quote. indexka ku yaala waa isla goobtan buu yaalaa, waa ./index.html baan ahadaa. komana waan ka soo xidhay xagga. haye waan kusoo soconayaa. filekan baan abuuranayaa loo yaqaan input.css. isla halkan ma dhig fogeynba input.css. haddii cilada aad ku aragtid waxaa kaa maqan wixii tailwind css intinaysan sigin. waxaan tegi doonaa extensionska, waxaan ku qori doonaa tailwind baan qori doonaa. wax cilada kuu keeni maayo, laakiin haddana inuu ka saaro editorku wuxuu u baahan yahay, kan buu u baahan yahay. tailwind css intinaysan sigaas u baahan yahay. hadhow wuxuu xusuusi doonaa wixii kalaasyo sii jira. wakaa ka baxay. haye waan ka soconaynaa. waxaa nagu dhiman inaynu node package-ka aynu mar walba intaan ku kulmo. package.json-ka u fiirsada. filekeena package.json-ka waa fileka mar walba intu css code-keena generate garayn doona. inta baan ku qori doonaa. intana way sii diyaarsan tahay. halkaa testiga ay ku qoran tahay waynu ka bedeli doonaa. waxaan ka dhigi doonaa build. intana waan masixi doonaa. intana iga masax. intii aan soo copy garaystay ayaan control-G ku odhanaya. magaan kasoo copy garaystay bartan baan kasoo copy garaystay. copy baan idhi, waan iska soo xidhayaa, right click baan odhanayaa,
basti baan oranaya mar walba faylkan halku faylkan inputkan yaalaa src gama yaala wuxuu yaalaa faylka rootka ah ee package-ka la siman way iska rab yaalaan haye faylkeena hadhow css ku generate gareeyo waxaan u bixin doonaa output isaga automatic u samayn doonaba intana watchka waan ka saari doonaa waxaan watchka xagga dama raacin doonaa u fiirsada linka dama raacin doonaa bill kan baan watch u bixinaya haye watch markaan u bixiyey kan koomada waan ka saarayaa waxaan raacinayaa watch haye marka koowaad maxaan samaynayaa fayl buu ii abuuri doonaa u fiirsada waxaan leeyahay clear screen npm run build faylkan waa faylka mar walba inugu abuuro inugu generate gareyn doono fayl wax commandada aynu ka bedelno projectgeena waa kan u fiirsada output book by default waxaa ku jira reset css inuu element kasta 0 ku celiyo ama none haye kan naga soo xidh haye waa yahay waxa weeye waxaa intaa inoogu xigayaa inaynu nahno npm run watch wax walba ka bedelaba halkaa ku qor shaqada waxay nagu xigaysaa inaynu tagno style guide-keena maxaa laynaga doonayaa horta waynan kalaaraanteena sii sheegana laba inuu kala qaybi shaashada halkaas ay dhigaysa haye indagaskana halkan ka fur halkana kalaaraan halkan tailwind configuration ka waaye waa kuwa horta kalaarada ugu horeynaya kalaarada laynaga doonaya waa xawaainta u fiirsataan kalaarada u samey halkaa extend ama teamka kolba kii aad doonto ayaad ku qori kartaa waaye extendka waxa weeye ku dar kalaarada hore u yaqaanay tailwind css haddii aanad doonayna kuwa ah oo hore usii yaqaanay intan waad isticmaalaysana teamka ku tugo oo kuwa horena iga saar weeye macnaheedu coloris inta baan tegayaa waxaan furayaa objectigaasaan furayaa waan xidhayaa objectigan waxaa ugu horeeya colorka leeda white waa kan white siduu kan soo koobi garaysa sidaa usoo koobi garaysa waa yahay white haddaba waxaad halkan gelaysaa single quote geli xidhna space no space koomadana ka dambeeya ka waaye meeshan maxaa jira 3 slide waaye 3 slide sidana waynu abuuri karnaa inaynu magacaan 3 slide 360 300 500 900 oo abuuro iyo inaynu slide intayna abuurno 3 kalaar sii kala leeyahayna aynu kasii abuurno مثلا u fiirsada waxaan samayn karaa inaan 3 xabad soo qaato aan saan sameeyo aan dhahdo slide-kan space ma ogola magacu aan saas kugu qoro aan kan kalena saas sameeyo aan xabada kalena soo qaato hadhow magacu wuxuu noqonayaa slide 500 iyo 300 iyo wixii aad qeexatay haye waa kaa saan idhaahdo sorry saan idhaahdo iyo inaan saan sameeyo fiirsada waan comment gareeyey ma kacayo iyo inaan saan sameeyo aan idhaahdo slide object cusub تعال بها slide 300 أنا 300 waa kan buu la micnay هي soo xidho aan idhaahdo kan hadda muxuu cilad igu haystaa kan iga soo xidh 500 kana aan saan u abuuro saanana fiican wixii kalaara isla inaad raaciso hal object iskaga dhigto kan ka soo xidhi haye 900 kana aad soo qaadatid intaan idhaahdo intaan soo qaato intaana waa kalaaradii aynu soo aragnay figmada haye shaqo badan baynu qabanay fartamana waan kusoo darsanaa projectgeena u fiirsada xageen kasoo qaadanaa control baan la taabanaya control iyo click taawo automatic wuxuu la furi doonaa browser
haye dismiss dheh rotate dheh fartaasaan doonayaa waxaan odhanayaa koorkeeda i tus waa kan linkan baan soo qaadanayaa halkan waad ku koobi garaysan kartaa koobigaa saddexa line buu ku koobi garanayaa u fiirsada mashruucan baan ku darsanayaa fartan indexkaan ku darayaa marka koowaad halkan baan u bixinayaa intaa haye waxaa kale laga baahan yahay message gareeyey inaan fartan iyadana kusoo daro mashruucan halkan kaga soo daraya bartan baan kaga soo daraya waxaa leeyahay found family jaab siinaya kadib markaad ku shubtay tailwind css intelligence found family comma objective kan ka dambeeya ka comma kaga haye magaca bixina waa outfit magaca fartu leedahay waa bixiya mesela waxa doonto bixin karta laakiin haye fartu waa magaceeda waa inaad sida ay tahay u qortaa sida ay tahay sidaa ha ugu qorto soo koobi karayso koobi badanaa weligaa allaha koobiga maxiiso haye fartaa bilow ayo maxaad la doonayaa serif halkaa ka xig haye inay ciladi ku jirta mashruucaga in kale mar walba hadda uu soo qoraya u fiirsada haye maxaa kalaaradii waynu sheegnay font familygii waynu sheegnay maxaa kale nagu dhiman inaynu sheegno inaynu masalan sheegno bari halkan u fiirsada design systemka tegeysa design systemkii waxaan sheegnay kalaradii fartii noocyadeedii baynu sheegnay fartan waa inaynu sheegnaa text preset 2 text preset saasay farqoriye mar baynu wada qeexi doonaa u fiirsada sidoo kalena spacingka waxaa loo yaqaanaa samayn doonaa space 540 pixel weeye haddaynu 500 nahno waa inuu 40 pixel sameeyaa haddaynu 300 nahno waa inuu 24 pixel sameeyaa 200 nahno waa inuu 60 pixel sameeyaa u fiirsada spacing halkan ku qoraynaa spacing haye kan hoose ka xig waxaan sameynayaa waxaa meesha 200 iyo 300 iyo 200 ka doo 200 ku ahaa 16 pixel buu haye 300 kan ku ahaa 24 pixel kan 40 24 pixel haye 400 kuna وامسح 40 بيكسل saddexdaas spacing waynu sameynay haye diyaarinta ayaa mar walba ka qiimo badan inaad koodhka samaysid haye typographiga ayaa inuu baxay waxaan sameynayaa saddex text preset oo saddexdan property leh sizekeedu 22 pixel weeye 120 percentage line heightkeedu weeye 0 pixel na letter spacingkeedu saan u sameynayaa halkan tail configuration file ayaa ku sameynaya u fiirsada halkaa saraba raacay font family-ga font size waxaa font size kan hore ka xidh kooma kaga xidh waxaad u bixinaysaa ka koowaad in la yidhahdaba text preset 1 haye preset 1 kan maxaa ku hoos jira inaad tahdid preset 1ku waa maxay waa 2 pixel مثلا marka u fiirsada 2 pixel sizekiisu weeye haye iyo internal object waxaa ka mid ah objectyada waxaa ka mid ah inaad samaysid 1 line height u fiirsada line height waxa weeye 120 percentage haye letter spacing waa imisa waa 0 pixel waxaa meesha kaga jira font weight waxaa ku noqonayaa Google fontka waa ku noqonayaa fiirsada imisa value waa maxay one value waa ku dhuftay bool baa maxay waa 7
700 مربع صح يعني waxay la iguma haysto aragtaan waa saxana halkan baan ku garaysanayaa tiga text preset2 preset2 waan bixiyay preset2 muxuu yahay pixel halkan ka soo eeg 15 pixel 140 regular 0.2 way 15 pixel ugu horeysay 15 pixel way hore 140 na weeye halkana waxa weeye waxay tahay 0.2 pixel 0.2 pixel fartuna waa regular waa 400 hadda ayaynu eegtay inaynu sameyno projectgeeni u fiirsada waxaan abuurayaa waxaan kaloo iga soo xidh stylegarka iga soo xidh kana iga xidhsada wada aragtid waxaan sameynayaa kaarka waxaan u sameynayaa mail good oo parent oo noqonaysa oo waalid noqonaysa waxaan u bixin doonaa main baan u bixinaya kaarka intuu ku qormayana waxaan u bixin doonaa article haye muxuu ka kooban yahay design-keena u fiirsada design-keena wuxuu ka kooban yahay qaybta design-ka tag qaybtan ku hore 1400 pixel marka dhigo waa kan wuxuu ka kooban yahay sawir iyo intan isku guruba inay isku gurubta intaan soo ogaanaysa halkan baa inoo cadaynaysa waa laba group groupkaasna waa group kana waa group waaye kan tagas baan bixin doonaa kaale sawirkiisa toos baan keeni doonaa article kan baa kaarkan baan wada hoos tagaa mainkuna waa intan muuqata ee colorka backgroundka shaashaduna bartanka inoo dhigtay haye soo soco iskala bigaaba saad ku aragtaa sidoo kale waxaan doonayaa inaan arko projectiga waxaan ka bilaabo waxaan sameynayaa right click aniga live server kusoo shubnay open with live server hello baan odhanayaa waa kan hadda intaas gebi baa qoran kuwan 3 screen baan isticmaali doonaa kaasi waa kii hadda aynu projectiga live ka kuwa ninkan waa koorkii kana waa design kale inaga doonayo haye article baan abuuray maxaa ugu horeynaya colorka ma ugu horeyn doona iyo inaan intan dhexdoodna wada dhigo si ay sawirka ka horeyn haye imageska ugu horeynaya haye waxa imageska kaga yaala qoralka la yiraahdo images ee projectiga imageka laga doonayo waa ka alternative form haddii image la waayo wey image QR codes ka qor haye kaas halkan kaalay haye maxaa ku xigay intaan isku group ah txt u bixi default abuur kartaa saas dif inaad tahdid dabeetana class abuurtid dabeetana aad u bixisid txt oo tagasa kasoo gaabsatay mesela maaha waxaad doonta u bixisa intaa hadda maxayna samayn karnaa control z haddaan idhaahdo intaa hadda aan sameeyey mar warkaan u sameeyey waxaa igaga filan yahay dot iyo magacaada bixinaysa class dabeetana tab taabad keyboard tab taabad haye maxaa meesha ku jira qoraal ah h1 oo maxay ah kan already meesha inoo sii yaala lagama doonay macallin aad qortid haye iyo inaad samaysid paragraphka haye paragraphna tab baa waan sameeyey okay projectigeeni live-kiisa waa kaa haye marka intaan sameynay hadda waxaa ku bilaabmaya styling waxaa ugu horeynaya background colorka inaan dhexda dhigno labadaas ugu horeynaya halkaasana style with css class noqonaya horta marka waa dhexda dhig min h screen waxaad ka dhigtaa min h screen oo kaa u fiirsada muxuu yidhi waa css-kii intii la isticmaali jiray looga jiray min height-ku 10 vh 100 vh ka dhig oo macnaheedu tahay dhinac walba shaashad walba
iyo shaashad walba bartankeeda dhig hadduu shaashadu tahay shaashad weyn iyo hadday shaashad moobil tahay iyo hadday shaashad kala tahayba mar walba wuxuu dhigayaa inta muuqata ayuu kaaga soo muujinaya shaashada boqolkeediiba boqol ayuu isticmaalayaa haye min screen maani haye waxba iskama bedelin way soo socotaa koorkan wax ku bedelaya waxaan odhanayaa qaabka displayga u muuqanaysaa waxaad ka dhigtaa flex card haye automatic waxay noqotay flex row haye waa by default haddaad flex isticmaasho flex rowna hoostu ku wataa haye justified alaabtan waxaad geysaa mar qura intan alaabtan article folder centerka dhig weeye haye shaashadan saad u aragtaan inspected halkan right click inspected haye halkan ka dooro waxaad ka doorataa halkan shaashadaha haye halkan waxaad ka dhigtaa 1440 ka dhig waa tan ugu design gareynaya mar walba haye center ma ka dhig itemiskana waxaad ka dhigtaa center cilad baa jirta cilada jirta aan u fiirsano dib baan u furi doonaa ayay iska bedelayeen kale height waxaad ka dhigtaa touch screen ka dhig masalan min touch screen ku daa weli waxbaa inaga maqan waxaa inaga maqan inaynu kaarhka ku samayno size ku sheegno kaarhka size waa imisa waa 320 halkan baynu kaarhkiisa sheegaynaa waxaan nahay class widthka waxaad ka dhigtaa bracket intaad furtid 320 pixel ترى maxaa ka qaadan justify center item center manage screen qaladka ugu weyn ay sameynaa waxa weeye kumaynaa soo xiriirinba failkeeni outputka projectga waa kan linki samee halkan intaan linki u qorin linki dheh linkigaas waa css haye output ku soo xiriir hadda ayuu sax yahay markaa samaarta inuu dhexdii tegay halkan waxaad ka dhigtaa 1000 oo boqol saad u arkaysaa markaa mar walba boqolkiiba boqol buu noqday dhexduu tegay haye kaarhka weliskiisu waa 320 tan ka daayo waxaa dhacaya fiirsada waynu soo noqon doonaa haye maxaa inaga dhiman background colorka inaynu ka dhigno u fiirsada slide-ka design-keeni way ku noqonaynaa figmada ahaa kan naga xidh kana naga xidh kana naga xidh kana naga xidh control bay dejinaa waa kan kana naga xidh waa kan design file-keena haye kii kala meel live preview
هي background كي بدلنا background كان white كاو في هذا كلارد يعني صوص يعني حاجة من بيجي سلايد كلر كلنا نقدر نوقف الواقع background ده وكي أبغى بالعكسين 300 وكي 300 كيسلي هاي انت ما هاي كلر كان وايت بيجي واحد كده وايت كي هاي بيجي وايت واحد dhinac walba waxaad kala qaatisaa maxay aynu markii 16 pixel baan dhinaca marka laga tago post way bari agas way waa labada dhinac waxaad kala qaatisaa 16 pixel oo 200 kii aynu soo sameynay ee configuration failkeena soo sameynay wuxuu yidhi 16 wuxuu nooga turjumayaa 200 kaa nooga turjumaya dhinac walba 16 kala qaata dhinac walba waa bidix iyo midig weeyo agas waa 200 haye sawirkaayna haysta waynu soo socon doonaa waa ka warwarlaaw garden top xagga sare waxaad kala qadaa 200 iyadana ka qaada waa halkaas sare wataa haye xagga hoosena waxaa la yidhi garden bottomkana 40 kala qaada garden bottom 40 ka maxay nooga turjumaya 400 innagaa samaysana waa kan ku fiirsa garden bottom 400 buu macnaheedu la mid yahay 40 pixel markaa haye waxaan ugu dhiman inaynu radius u sameyno oo idhaahdo waa imisa intan border radius ku fiirsada waa 20 pixel border rounded both sides rounded maxay rounded 20 20 pixel waxaa nooga dhigmayay meesha 200 kaa nooga dhigmay waynu soo sameynay 200 may iska daa waynu soo noqon doonaa intaa haye sawirka ayaa u baahan in wax shaqo laga qabto waxaan u abuuri doonaa class baan u abuuri doonaa waxaan u doonaa widthka wax dhigtaa full haye sidoo kalena wuxuu u baahan yahay heightkiisuna waa full haye sidoo kale waxaan u baahanahay inaan wax walba dhexda dhigo waxaan samayn karaa inaan idhaahdo flex justify items justify center sidoo kalena idhaahdo flex row 20 mitiga soo arkaan flex column idhaahdo col shay kasta dhexda dhig itemada macluumaad dhex dhigi karnaa hadda wax walba dhex dhigi itemiskana oran karnaa itemiska macluumaadka dhexda dhig inagoo taa oo dhan waxaan oran karnaa inaynu idhaahdo tega center aynaano wax walba qaado centerka geed okay hadiya waxay nagu dhiman inaynu u sameyno gaabkii aynu sameyno kan iyo kan maxay isu dhexeeyaan baan nidhi 40 pixel bay isu dhexeeyaan u fiirsada gaab halkaan waxaa u dhexeeya 24 pixel waxaan oranaa kaan masaxinaa flexkan isticmaala flex call baan oranaa gaabku waa imisa 24 pixel 24 pixel keeba ka turjumaya keeda haddana markaa waa kala qaadnay 24 pixelkii haye waxaan ka dhigaynaa fartanna sawirka ayaynu sawirka waan soo noqon doonaa fartan ku horeyn doonaa farta dhexda taala farta mididu tag haye 16 pixel bay dhinac walba iyaduna dhinacadana 16 pixel bay kasoo tagtay haye padding waxaan oranaa padding agas 200 number 1 halkaasaan kaga bilaabeynaa haye dhexdeeduna
oo flex core way hoos yaalaan macnaheedu gaabka u dhexeeyaana waa maxay waa 16 pixel oo 200 macnaheedu u fiirsada sidoo kalena fartu xagee taalaa dhexda taalaa taga center baynu qorana taga center waniga dhexdooda geliya haye waxaa ku dhagan waa maxay inaan midna waaweynay midna yareeray haye kalaas waxaan odhanayaa fartan maxay u fiirsada oo black somal waa imisa text preset 1 bay sida tahay soaltan hagaan kasoo adeegan waxaan odhanayaa text preset 1 oo intii specification iyo ama property oo waa kan waa maxay font size waa 2 pixel line height waa waxa weeye 120 letters font width waa 700 u fiirsada marka hadda saa idhaahdo iska bedelo fartii fartii waa waaweynaa haye kan hoosena maxay wadataa text preset 2 bay wadataa text preset 2 هي color كذا هو slide 500 هي text مرة text slide 500 هي وحقولها نقول وحوي كار كان مسوينه size وسوينه هذا كار كان هو كلا size وفي صار قاعد كمبيوتر كان تجيه هو اللح بقول إذا لو يعبرتن ورد هي اللح بقول يعبرتن هاي كان لما هي هاي صدق بقول يعبرتن أخذ بقول سعر سعر وهي هاي هذا ما نقول بس يعني في صار كم باور سوين دولار وحنا ويل سوق لما هاي 288 بيكسل هاي تكون لما هاي 288 بيكسل sidoo kalena roundedkiisu waa maxay rounded buu leeyahay waa 10 pixel كسوان يساوي 0.6 pixel 8 pixel LG customize arbitrary ama customization ku samee ku qasab 10 pixel haye waxaa meeshii soos galay kala yaacay baa soo iskashay haye maxaa keenay kan baa keenay cilada waan ka saarayaa xagga sare ayaan ka dhigayaa width full baan ka dhigayaa isaga mar walba inta parentiga sizekiisu yahay kan dhalaa 320 baan ka dhigayaa articalka waxaad ka dhigtaa widthkiisa waxaad ka dhigtaa 320 pixel meesha ka qaldan hadda fartii unbaa ka qaldan fartaasi waa laba line tankana tana waa laba line taasina waa 3 line what's wrong dib u eeg haye halkan baynu ka eegaynaa parent bx ka saar ka same mashruuca hadda aad aragtid iyo kaasi waa same u fiirsada waynu eegi doonaa control iyo 0 taho mashruucina iyo mashruuci kale sumid waa shaashada yar baan ku eegaya u fiirsada shaashada yar halkan ka dooranaya iPhone 335 same way saas ayuu sax ku yahay
واي waxaan ugu dhiman haddaba tabtii loo upload gareynayay uploadingkii baan ugu dhiman markaad mashruuca samayso waa inaad upload garaysaa xagaan ku upload garanaya github-ku inuu ku upload garaya u fiirsada github waxaan hadda markaan mashruuca joojino wax walba inoo dhan yihiin waan joojinaynaa halkan ka joojinaynaa control plus dheh minute control c baan nidhi inaad joojiso macal wax manhaajoo ku jira ma jirto github-keedii baan ku noqonaynaa kan waan iska soo xidhaynaa baanin wixii dambe haddana waan ku noqonaysanay github-kii baynu tegaynaa github-kiina waa kan create new upload baan leeyahay xaggaan upload garanaya faylashaydii upload garee faylashaydii waa kuwan choose your files baad oran kartaa ama waad soo daragarayn kartaa saan u daragarayn karaa inaad tan oo dhan idhaahdo nool majhuulka iska reeb noolnigi waxaan kaloo dhan qaado waa kuwa indexki waa kaa inputki waa kaa outputki waa kuwa package jasonki waa kuwa wixii o dhan waa kuwa maxaan ku qorayaa waxaad ku xasuusato first touch oo markii kooda wax ka qabtaa macnaheedu designkii wixii o dhan way commit dheh faylkii saas ku sameynaya faylkii wuxuu kugu sameeyey hadda repository folder github-kaaga ka mid ayuu kugu sameeyey waay sidaan uga dhigi karaa live inay dadku arkaan waxaan uga dhigi karaa inaan settingska tago oo idhaahdo pageska tag u samee meel laga arki karo oo nantan tago oo idhaahdo save garee intaa markaan sameeyo waxaan tegayaa halkan u fiirsada marka uploadingkii ku wadaa kadib markuu uploadingkaa ku dhameeyo qadar minadaad sugaysaa ayaad ka arki kartaa pagekaagan isagoo live ah hadda markii hore computerkaaga aad ku haysatay haddana waxaad u arki kartaa live dad kaloo asxaabtaada ah ama dad kaloo macaamiishaada ah baad tusi kartaa oran kartaa pagekan saani dariiqan baan u sameeyey waxaanad ka arki kartaan meel heblaayo url-ka u fiirsada url automatic buu abuuri doonaa username-kaaga ah magacaygii baa ku jira mid walba username-kiisa uniga iyo ciwaankii aad u bixisay ciwaanadana adigay unique ku yihiin waa kaa mashruucaan sameeyey haddaba faa'iidada aan github-ka ugu sameeyey waxay naga caawinaysaa front end monitorkii u fiirsada front endkii baan tegayaa ilan waxaan galay waxaan idhi challenge-ka waan samayn karaa challenge-sidaan tegey oo kuwan homekay brokerkaygaan tegayaa waxaan tegayaa solutionska waxaan tegi doonaa my challengeskan tegi doonaa kuwa in progresska baan eegaya kuwaas xabadan baa hadda in progress waay waxaan odhanayaa submit solutionkii waan sameeyey ii samee titlekan doona bixiya designing QR code component using tailwind CSS haye repository-gii mee repository waa folderkii aad ka samaysatay github haye mid cusubba kan lagu furo haye github-kayga tag repository-gayga maxaa labadaas ay jira kan weeye kani aan doonayaa repository-gu waa kan repository-gu adalku waa kaa haye kusoo noqo kan repository-ga program sidii password live site url-kuna waa kan pageska ugu jira settingska intaan tago pageska kusii jira waa kan kusoo dhufo waa kan live site-kuna waa kan haye solution halkan waxaad ku qori kartaa waxaad doonto baad iska tegi kartaa haye waxaan doonta ku qornay waxaad oran kartaa any feedback on this project welcome wax walba la igu dhahdo waan soo dhaweynaya iska dhac saddexdan copy button dheh control A control C control C saddexdan inta ku buuxi waa kan
projectigaa saasaad ku dhamaysay.